dadka duubka ku xidhay qaar baan dhab loo shidin dadka duubka ku xidhay qaar baan dhab loo shidin kaamanka ay ka samaysan yihiin barakacayaasha dadkii abaartu saamaysay sida kaamka wargumbi iyo fadhikaabo dhinaca bari kaga beegan degmada Garadag ayaa waxa ku sugan ka badan kumanaan qoys oo ka mid ah dadkii ay haleeshay abaarta afar jirsatay waxaana soo food saartay xaalad murugo leh sida xanuuno cunto la'aan hoy la'aan iyo haraad waxayna baaqayla dhan degdeg u direen xukuumadda Soomaaliland hay'adaha caalamiga iyo cid kasta oo wax ka qaban karta baahiyahooda waxayna sheegeen inta jirtay xukuumadda madaxweyne inaanay ka helin wax taakula ah waa sidii hadalka u dhigeen waxaana qayla dhaantan si wada jir u diray maamulka deegaanka Fadhikaab iyo mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Garadag oo muddaba ku jiray oo kuurkanka xaaladda qalafsan ee ay ku sugan yihiin dadka barakacayaashaahi oo inta badan ay macluul iyo dhimasho qarka u sii saaran tahay waxaan ogeysiinaa wax taakula afarta bilood inaanay xagna nooga iman biyo haday tahay baad kale haday tahay dadkina inuu baqti ku jiro adduunna meesha aanu jirin xoolihii ay hore uga dhammaadeen ama waa abaal gudaya oran meena madaxweyne waa waraabsaday dee oran laakiin ka saas noo kaftan anna saasanu rumayn waxaanu leenahay dadkaas way ka tuman tahay si degdeg ah loogu gurmado dawladda hay'adaha maxalliga iyo kuwa dawladdu hay soo weydiiyeen guddiga abaaru hay soo weydiiso si degdeg dadka loogu soo gurmado qaladlaan aad ayaan u direynaa waxa weeyaan dadkani aad u jecel yahay xaalada soo gaaro wax quudin wax cunaan iyo wax lagu caafimaad gareeyo iyo hadii aan la idmay wax baahiyaadka ka bixiyo baahi u dhiman nooc kasta loo dhigo baahi u dhiman ma jirto way wada soo cayroomay oo xoolo ka dhamaadeen oo aan daryeel haysan oo wax cunaan haysan biyaan haysan rug caafimaad baan haysan wax kasta oo daryeel ma haystaan marka waxaan aad qaladaan u direynaa dawladda iyo hay'adaha iyo qurba joogta iyo cid kasta oo muslimiin ah oo xuquuqda bini'aadamka ilaaliya waxaanu leenahay dawladda hay'adaha caalamiga in kastoo islaam oo xuquuqul islaamka u doodaba gurmad degdega halala soo gaaro aad bay xaaladaas meel baan u maraysaa tirada la idin sheegayna way soo kordhaysaa yoomkii kasta way soo gashaa way soo kordhaysaa tira koob ma waa tira socoto dadku ku soo biirayo waxaan leenahay gurmad degdega halala soo gaaro og waliba waxaanu sii siinayna xukuumaddaanu sii siinayna meeshu waxay u baahan tahay caafimaad darrada waa xun tahay quudinteedu waa xun tahay dawladda waxaanu ka barinayaa inay inta gurmadka soo gaarto waxaana weeyaan dadkii uu ahaa sawdkooda qadinka ayuu ahaa waxa weeye haddii maanta la haleeyo iyaguna inay haleynayaan intaas waa naga cabasho cid bay haleynayaan waayo xusulkaan xundurta ku qabanay wiil iyo gabadh waa soo jiidnay meel kastaanu ka keenay kursigii baanu ku fadhiisinay dee waxaanu doonaynaa madaxweyne inaanu saa nooga seexan inta uu kursiga ku fadhiyay warna kama hayno waxtarna kama hayno balay soo qarin maayo dadkana waxa weeye maanta marka la yiraahdo shambaa la aasay waxa la oranayaa dawladda maxaa loo soo gaarsiin hada dadku wuxuu taagan yahay serious kii ugu dambeysay uu taagan yahay kii inta waxa weeye gaajadish ama biyo macaan oo lagu qabtay la wax kale bay iska daayay dadka waxa weeye gurmad degdeg ah lala soo gaaro يا كاشو يا ضيع يا حتى السلام انت ما واقفنا يا دليل بلاصه مله سوق عافماد ملها dadkaas aad iyo aad isku dhibaatay meeshaan way isku yimi kulligeed buu marayaa 700 qoys waxaan leenahay dawladda iyo hay'adaha iyo wixii islaamaba waxaan leenahay dadka la soo taakuleeyo dadka waxaan u baahanahay dadka in la arko dawladdu la arko hay'aduhu la arkaan maadarada waxaan ka codsanaynaa dawladda uu galwadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi iyo fulinteeda inay si degdeg ah wax la soo gaaraan reer Fadhikaab ama IDB-ga Fadhikaab waayo wax la yiri dhiiska inta birta loo soo slaabo baqtiya maanta baqti waxba ugama dhin Farax Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Home Cable TV degmada Garadag